nin ayaa wuxuu muxaadaro u jeediyey arday badan wuxuuna isla mar ahaanta weydiiyey su'aal ah ka warrama ardayay haddii uu midkiin helo $86,400 kadibna uu mid ka xado $10 ma waxaad u istaagaysaa inaad ka daba tagtid shakhsigaas adigoo gacanta ku haya $86,390 ee soo haray mise waad ka tegaysaa oo waddadaada ayaad iska sii dhammaystiran doontaa ardaydii oo dhan waxay ku jawaabeen dabcan waan ka tegaynaa waxaana ilaashanaynaa $86,390 ee inoo soo haray wuxuu yidhi ustaadkii adinku dhammaantiin waxaad samaynaysaan ka soo horjeedka arrintan waxaad luminaysaan $86,390 adinkoo ka daba ordaya $10 ujeeddada qisada $86,400 waxay u taagan tahay tirada ilbiriqsiyada maalin keliya adigana waxaad ku beddelaysaa eray qof kugu yidhi oo kaa caraysiiyey ama xaalad kaa xanaajisay 10 ilbiriqsi inaad ku baaqi ahaatid maalintaada inaad ku baaqi ahaatid ka fakarka xaaladdaas maalintaada oo dhan adna weliba ka yeeshid 10kaas daqiiqo inay kaa dayacdo $86,390 ilbiriqsi kuu soo haray ha u oggolaan xaalad ama erey inay daadsadaan tamartaada iyo fikirkaaga oo aad isla mar ahaantaa niyad jabiso go'aan qaadashada maalintaada maxaa yeelay waqtigu waa lacag